السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أتوكل حين أركضنا وحلي هذا body language. body وجر language لغة الشركة. سلا سعتان لغة وحلو قيشة لا بقيم. وحلي كلا verbal يا non verbal. لغة هذا لا أما هذا الكهان ده يكون شيء مثل ماما وكعمها سيدنا هذا كله ليه وكلا ما ينده سبعة ما ينده ما يدوا ما ينده نور سسكر. لباس نوع أي لغة دوي. marka runtii ama gacan laga sameeyo ama maartay dharka aan qabo ama sida aan u diyaarsanahay ama sida u muuqdo intaaba dhamaantood waa body language waxayna gudbinayaan dhamaantood fariin adigu ama jeclaan hada qaab hada u soo labistid automatically dadku horay ay waxbay xisaabsanayaan iyaga isku dhufsanayaan hadaad khamiis wuxuu iska soo xiratid qof waxa laga yaabaa inay ku aaminaan maybe wadaad sometimes subax kartay ma maybe hadaad qof dumar tahay cabaayada iyo waxa soo xirtay soo xujabto indhaha soo shareertay saas laga aaminay hadii macnaha ma ahan inaad tahay kama dhigna laakiin just waa iska soo labisatay hadii aad qaab kale u soo xirtay maybe aad sheegada soo xirtay waxa laga aaminayaa qof maxaa la yiraahdaa yo xun dadka ma aragtay meelaha iska galaya marka ma aragtay hadana waxa laga qof fiican tahay oo horumarka fikirayo oo wanaagsan oo cilmi bartay oo waxa soo dhan macna uma fariido dadka ka body language ku maxaa la yiraahdaa runtii waa cilmi aad u ballaaran runtii waxa la dhahaa fariinta aad gudbinaysid hadalku wuxuu noqdaa wax ka yar 30% 70 kale fariinta aad gudbinaysid waxa gudbinaya body language ama qaabka u taagan tahay ama qaabka aad wax u kala bedbedelaysid ama qaabka u labisan tahay ama qaabka aad calaamado u bixinaysid ama sida aad u diyaarsan tahay dhamaantood waxa ay ka qayb qaadanayaan fariinta aad bixinaysid ama gudbinaysid marka body language ku وسيداس إن شاء الله 10 كنان وحو هردعو يهي عطوكان إبايدينكي كنان كوباد عطوكو كسابسان أما عندها 10 كيلابات ماداما كي هردعها عن سوق عالمي وحينو كاركتونا وحنا يرهدو أي كونتاكت runtii body language ka markaynu wax soo jeedinta sameynayno waxa uu ka qaataa qayb aad muhiim ah waayo wax soo jeedintaada oo dhan waxa bedeli kara maxaa la yiraahdaa qaabka aad u diyaarsantahay salaafad ayaan ku sheegaya maxaa la yiraahdaa fariin baartina gudbisid fariintii iyo adigiina isku qaabatihiin marka therefore waxa dhacaya in dadkii ay wax kale ka aaminaan ama ka batagaan ayaa dhacaysa salaafad oo kale waxaan soo qaatay ishak ama waxaan dhihi karnaa waxa soo qaatay waxa ay jiran jeega ay jiran waxaan rabaa dadka inaan uga sheekeeyo muhiimadda ay leedahay maxaa la yiraahdaa in salaada la dhowro in maaragtay marka wax wanaagsan baa ka hadlaya hadalkayga sideeda wax dhibaato ama leh laakiin dadkii ma qaadanayaan xitaa waxa sheegayo dhan ma qaadanayaan anigii bay in fact hoos iga xamanayaan waa inay caaniyaan waana sidaas sida dhacaysa marba hadii fariinta gudbinaysid iyo muuqaada iyo tilmaamtaada iyo systemkaada iyo body language-kaada aysan iskin waxaanu arkaynaa qaybaha ugu muhiimsan body language-ka mid kamid ah waxaan yiraahdaa eye contact waxa la yiraahdaa waa eye indhaha contact xiriirka aad la sameynaysid dadka aad u qudbeynaysid ama wax soo jeedinaysid soo ahaan sababta hadda isweydiin dadka marka artiin qof u qudbeeyo ama aad la hadashid waxa jeceshay inaad laga dhexgelin hadalkiisan ku jirin baad maqlaysaa hadii qof ka hor istaago waxa weeye waa dhibsanaysa sababta aad u raadinaysa maxay tahay qofku dhagu wax ka maqlaa hadalkaadana mar walba waa maqlaya laakiin waxa weeye interest gaar ah ayaad muujinaysaa isna muujinaya ma doonaysa inaad dhex galo sida daraaddeed qofku wax soo jeedinaya hadii uu cirka fiirsho ama gees fiirsho ama hoos fiirsho oo uusan fiirin dadkii uu qudbeynayay oo uusan la socon maxaa la yiraahdaa iyadana way dhibsanayaan waxay u arkayaan waxaan inaysan dhabka ahayn waxaan qofku inaysan serious aysan ka ahayn ayay moodayaan marka waxa la yiraahdaa never let them out of your sight dadka wax u jeedinaysid waliga ya allaha isha hooga qaaday ama aragaada aysan ka fogaan marka maxaa la yiraahdaa waxa xikmadu wax weyn dadka marka wax u jeedinaysid ma aha inaad maanta dhan hal dadku kala duwan dad dhinacan ka jira horena ka jira ما هنا هذا هل كوح كلية سقفير سمان ترى لكن واحد الربع إنه قاب ما عرفت فرصة سنة هذا محل قيبة المرفيرس قيبة النمر فيرس
laakiin aadan isweynin dhag aadan dhihin si macnaha wareer si deganaan rabo hadalkaas ka wad waxa weeye arrintan sida xoogaa waday qaybtaana ka soo fiirisay halkaanaad fiirinaysaa haddana qoladaas wax weydiinaysaa xoogaa interaction dadku waxay u arkayaan inaad muhiim ay ku wada yihiin haddii laakiin hal qof kaliya ku dhigaagtid waxaa laga yaabaa qofku inuu ku dhibsado ma fahamtay ama ku hawaara oo balaayada masiibada ayaa naga sii jeedsha maanta dhan na fiirinaya anaa kaliya na fiirin dadka kale ma fiirin markaas sida qof gaar ah taariikh lama saaro dadkii marka si guud ayaa maartay oo degan ayaa loo fiirshaa adoo hadba marka u kala beddelaya lana soconayo marka eye contactigu wax badan ayay kaa caawinaysaa oo dhibaatooyin badan oo aan kugu dhici lahaa wax badan oo kalena way ku horumarinaysaa oo presentation-kaaga looking them in the eye makes them feel that they are influencing what you say marka waxaad yiraahdaa marka dadka aad fiirisid waxay ka dhigaysaa iyaga in ay ma aragtay dareemaan waxaad sheegaysid inay dareemo u yeeshaan hadda salahan adigu ma aragtay meel fog iyo dad loo qodbay inay ka fakar hadda anu adiga hadda kula hadlay oo ka sii jeesto oo kula hadlo maxaa isdhahaysaa isha ama gees fiirsho macnaha serious wixii aan ka ahayn ama dhabaysa iga ahayn ama waxa isleedahay dad iska hadlo wuxuu sheegayaa shay aniga ma hadlay macnaha xitaa waa xanaaqaysaa wax kale iska daayay marka adiga ka fakar dad badan oo qodbaynaysa oo aan fiirinayna ama maaragtay hadalkaada wajahadaada isugu jeedo marka sidoo kale waxaa yiraahdaa eye contact allows the presentation to approximate conversation the audiences feel much more involved marka aad dadka fiirinaysid audience waxay dareemayaan in ay ka qayb qaadanayaan inay ku jiraan ayay isu arkayaan wada hadalka dooda waxaad ka sheekeynaysaa inay qayb ka yihiin ayay isu arkayaan sidoo kale markaan taa ka tagno eye contactigu runtii waxyaabo kale ka caawin kartaa jirta waxaad arki kartaa hadal haddaa khaldan tiri dadka markaba isbedel ayaa ka dareemaysaa wajiyadooda ama maybe inay xanaaqsan yihiin waxaad arki kartaa waxay hadalkeeda marka ka bedeli kartaa ma saa uma wadin saas aan wadi waad sixi kartaa laakiin markaad eye contact sameeyeen runtii waxaa dhacaysa xitaa inaadan ka warayn maanta oo dadku inay hoos fiirinayaan inay xanaaqsan yihiin inay ku kacsan yihiin inay danaynayaan waxa aad wadid iyo in kale labadaba waxaa laga yaabaa inaadan maartay dareemin marka runtii eye contact waa qayb aad muhiim ugu ah markaynu ka hadlayno maxaa la yiraahdaa cilmiga wax soo jeedinta markaynu ka hadlayno intaa ayaynu kusoo gabagabeynaynaa idinkii waxaan rajeynayaa inaad wax badan oo eye contactiga ku saabsan aad fahamtay السلام عليكم إن شاء الله بإذنك وحين وسعودي كورسديني وإنه نحجرنا عطبكي صدحات body language قيبتاً وحن كو أركدونا وحيابها أي تهي إن هذا السمين أما وحلو يقانا no noise وحيابها لغاربو إن هذا السمين مركي عاد هورستاغن تهي دادكي أما أخذ بينيسيد أما منبركي ساران تهي أما استيجكي وهكذا قدر كودة حوية lean on or grip the podium waxaa la rabaa macnaha inaad ma aragtay aad iska ilaalisid in aad ma aragtay saasoo kale meel cusub saasoo kale isku qalooc sidoo kale ama ma aragtay meel qabsatid ama isqalooc saasoo kale markaad ma aragtay meesha ku beenaysid marka u beenaysid oo aad podiumka taaganta isku day in aad ma aragtay straight iska dhigtid istoosisid khudbadii adoo toosan aad qubaysid oo wax sharaxdid oo aad geesaha fiirsid oo aad ma aragtay dadkii ma aragtay u jeedid laakiin aadan saa meel isugu dhajin ama ma aragtay aadan ma aragtay dilay ku idmayo aadan saa isugu qalloocin si noocaas oo kale aadan sameyn waxa kaloo laga iska ilaaliyo waxa weeye rock or sway in place waxa la iska ilaaliyo waxa weeye inaad beesha ruxsid ama xoog control awood ama muujisid iyada laftirkeeda waxa iska ilaalinaysa waxyaaba iska ilaalinaysid ayay ka mid tahay waxa kaloo ka mid ah stand immobile inaad iska dhigtid qof aan dhaqaaqayn oo maanta dhan khudbadaadii sidaa iska dhigtay waxa weeye maanta dhan waxbaa sharaxaysa waxaan idiin sheegayaa sidaan maanta dhan macnaha qofkii waaba ku dhibsanayaa wax la ked ah way kaanaysa marka waxaa la rabaa inaad xoogaa dhaqdhaqaaqad xoogaa isbedel xoogaa maartay xoogaa geeskan oo kale mar aad sheekada ka fiirisid mar sidaan oo kale xagga wax ka fiirisid mar baqaab aad maartay aad farsamaysid ayaa laga doonaya laakiin haddaad immobile iska dhigtid ama stand immobile iska dhigtid waxa weeye xoogaa dhibaato ayay ku keenaysaa qofkii caajisanaysaa ama qofkii dhageystaha ayay caajisanaysaa use single gesture repeatedly inaad isticmaashid
hal gesture waxa la yiraahdaa tilmaamaha qofku uu bixiyo marka uu khudbaynayo salahayn farsa u tagtid oo kale waxa weeye sidan ma yeelayna dhahda yes adahdo wax noocaas ah sameys laakiin macnaha hal mid hadaa maanta la isticmaasho qofkii waa ku dhibsanaya marka somehow si waxa aad u kala farsamaysid inaad isku daydid maybe gestures kala duwan inaad isticmaasho maanta hadaad example asaga waa sida gesture-ka wax lagu talagalay in meel adag lagu muujiyo meel muhiim ah lagu muujiyo waxyaabo noocaas oo kale ayaa lagu talagalay laakiin hadaad all the time gesture isticmaashid therefore qofkii hadalkaadii wixii emphasize-ka asaartay meesha ta'kiidisay iyo meeshii kale uu ku wareegay waxa kale oo jira examine or bite your fingernails waxa weeye ciladaha dhaca ay ka mid tahay inuu qofku isku dayo in uu maaragtay soo qodbaynaya farihii afka la galo oo maxaa raahdaa cidiyihiisii qanqaniino iyo waxyaabaha la midka inuu qofku sameeyo marka waxyaabahaas oo kale inaad iska eegtid oo markaad qodbaynaysid aadan waxyaabaha noocaas aadan sameyn arrimaha kale ku xiga waxa ka mid ah cross maaragtay inaad gacmaha isku saartid cross your arms in front of your chest wadnahaada ama maaragtay xabadkaada chestiga xabadka inaad maaragtay gacmihi isa saartid oo sidaas oo kale qof maaragtay isa saaran oo maaragtay gacmihiisa isu saartay oo khudbaynaya noqotin aad iska ilaalisaa waxa kaloo aad iska ilaalisaa in aad isticmaashid maxaa la yiraahdaa dilay ku idmayo xanjo oo kale inaad raamsatid ama adoo xanjo raaminaya in maaragtay aad khudbaysid aad maaragtay iska caarifsid waxba ay sheegaya sayniska adahaydo kale inaad maaragtay iska eegtid ayaa la doonaya sababtoo ah qofkii message-kii aad gudbinaysay fariintii aad gudbinaysay ayay ka dhexgelaysaa waxa dhan loo orday waxa weeye in fariintii aad rabtay ay qofkii gaadho taa marka se u dhacdo waa inaad qofka ka ilaaliso wax walba oo dhibaato u keeni karo waxa kaloo ka mid ah clip or tap your pencil or pointer maanta oo dhan inaad maaragtay qalinkaada oo kale qalin yarba wadataa way sidoo waxba sharaxaysaa wixii kula macnaad markaas dhag waad ku haysaa ma garanaysaa arrimahaas oo kale waxa weeye intentionka qofka ayay maaragtay ay ka dhuminayaan marka waxyaabaha la doonayo body language-ka waxyaabaha la rabo waa body language adigu ma ogid laakiin maxaa raahdaa wax weyn ayay ka bixinayaan therefore kuwana waa la rabaa inaad samaysid kuwana lama doonayo inaad samaysid marka qaybta kooda halkaas ku gabagabeynayna waxaa inoo socday waxyaabaha ama la xiriira body language-ka luqadda jirka aan la doonayn in aad samaysid marka qodobadii baynu sii wadanayna waxaa ka mid ah lean into the microphone inaad meesha adoo qodbaynaya dadkii maaragtay hortaagan inaad microphone-ka saa isula qalluucisid oo maaragtay saasoo kale aad maaragtay ama saasoo kale isula waxyaabahaas oo kale waxaa la doonayaa inaad iska ilaalisid waxaa kaloo ka mid ah shuffle your notice inaad maaragtay si unnecessary aan maaragtay markaa muhiimad gaar ah ku jirin oo aan maaragtay aad ka baaqsan kartay inaad maaragtay noodkaadii jaraac maanta oo dhan noodkaadii iyo kala rogoodii aad gashid adoo khudbadii ama hadalkii wada taa waxay keenaysaa in maaragtay qofkii dareenkiisii ama focuskii qofka maaragtay diiradda uu saarayay barnaamijka in uu maaragtay meesha ka baxo oo maaragtay qofkii wax kale ka fikiro waxaa kaloo jirta tighten your tie inaad taygaada oo kale aad adkaysatid isla markaana sidoo kale aad dharkaada aad la ciyaarto qof waxa arkaysaa soo qodbaynay saa isu toosinayo oo garbaha saxanaya ma garanaysaa ayada arkaysa marka waxay kaa bixinaysaa image qaldan ayay kaa bixinaysaa qofkii inuu adiga kugu mashquulo kaa fakaro muxuu saa sameynaya muxuu kale meesha uu focuska saari lahaa hadalka aad jeedinaysa iyo qofku wuxuu focuska saarayaa adigii iyo tilmaamihii aad bixinaysa ayuu saaraya waxa kaloo ka mid ah haddii ilahay ku idmayo inaad maaragtay fura ama wax lamid ah haysatid aad dhaqdhaqaajisid iyo wax lamid ah xikmadda marka waxa weeye nowiskan aan usoo celcelinayno waxa weeye wax kale ma ahan waxa adiga u socotay oo meesha usoo istaagtay ma ahan inaad just iska hadashid oo keliya waxa usoo istaagtay fariintaada in la noqdo waxa usoo istaagtay qodobka inaad gudbisid ama hawl inaad gudbisid ama barnaamijyo inaad gudbisid ayaad usoo istaagtay wixii aad usoo istaagtay oo dhan ayaa meesha ka baxaya therefore sidaa darteed ayuu qofku maaragtay ugu baahan yahay in uu maaragtay ka ilaaliyo bulshadii aad wax u jeedinaysa ama audienceskaadii ama dhegaystayaashaadii inaad ka ilaalisid wax walba oo disruption ku keeni kara maaragtay wax walba oo ka khalkhalgelin kara inay fariintii ama qorshihii aad u socotay
ay runtii maqlaan intaas ku soo koobaynaa qaybteena koobaad ay aad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaynu soo gaarnay iyo guntii iyo gabagabadii qaybtii la xiriirtay body language-ka ayaynu soo gaarnay waxagaag markan waxaynu wax ka arki doonaa voice ama codka ayaynu wax ka arki doonaa codka markaynu qaybino laba qaybood baa qaybeynaa voice intelligibility iyo waxaanu qaybeynaa voice variability marka haddaan qaybta koowaad aragno ama voice intelligibility-ga qaybta ah waxaynu ku arkaynaa halkan waxaa ku jira waxyaaba badan tusaale ahaan waxaa ka mid a pronunciation-kii sida aad hadalka ugu dhawaaqaysid qaabka aad maaragtay hadalka u dhigaysid ayaa ka mid marka example maxaa la yidhaahdaa dhawaaqayga ama qaabkan ugu dhawaaqayo haddii maaragtay uu maaragtay waxaa la rabaa qaab macnaha dadkii ka gadmi kara inuu yahay macnaha waa inaan hadalkii sidii loogu talagalay ugu dhawaaqo ereyga sidii loogu talagalay u sheego si markaa qofkii maaragtay uu u fahmo waxa aan sheegayo uu u fahmo salaha waxaa laga doonayaa inaan focalized voices aan sameeyo oo hadalka maanta dhan aanan wadin tusaalahaan sida qoraalku u leeyahay joogsi iyo hakad iyo maaragtay wixii la mida ayuu hadalkan u leeyahay haddaan maanta dhan hadalka isku daba xirtid oo dhaadid waxaan doonayaa sidaan qofkii macnaha meeluu ka neefsado buu weynayaa marka waxaa la doonayaa inaad hadalkii aad maaragtay voices u samaysid mar istaagtid mar wadid mar xoogaa israacisid mar joojisid sida noocaas oo kale markaad isticmaashid waxaa kuu fududaanaya in qofkii uu si fudud kuula socdo waxa aad sheegaysa waxaa kaloo iska ilaalinaysaa inaad maaragtay hadallada maaragtay la caadaysto marka la dhaho example qofka waxaa laga yaabaa hadlahayn u tahay wuxun eray ah marka wixii maanta dhan kusoo calcaliyay erayki soo ma aragtaan sidoo kale oo tiro badan marka waxyaabaha noocaas oo kale iyadana waad iska ilaalinaysaa waxaa kaloo iska ilaalinaysaa substandard grammar inaad grammar liita aad maaragtay hadalkaadii iyo maaragtay iyo maxaa la yidhahdaa ii sheeg iyo qoraalka wax kusoo barasigaranaysa iyo systemkaadii in maaragtay qaab naxwihiisu la tafaftiray inuu yahay waxaa kaloo jira qaybta voice variability-ga ah oo la xiriirta isbedbedelka hadalka taasoo kale waxaa ka mid ah rate of speech rate-ka aad ku socotid hadalka macnaha speed-ka aad ku wadid macnaha ay ka dhiganta tusaale ahaan intee isu xijinaysa hadalka ma waxaa leedahay sidan waxaan anigu doonaya sidoo kale macnaha u baartay marka rate-ka aad ku wadid iyo inaad baartay isku xijinaysid maybe sidoo kale iyo volume-ka waxyaabaha la rabo inaad controlshid oo waxaa la rabaa wax macnaha qaab qofku la socdo volume-ka kale waa codka codkiina waxaa la doonayaa in maaragtay meel dhaxaad mar walba aad ku wadid marka laga tago meelaha la adkeynayo oo emphasis loo isticmaalayo emphasis marka waa ta'kiidin marka meelahaas qofku waxa meel aad doonaysa ma doonayn oo kala tirmoogta meel aad maaragtay rabtid inaad maaragtay dadka ay dareemaan kulana qaataan aad doonaysa marka meelahaas oo kale unbaa la adkeeyaa oo kor loo yara dhahaa xoogaa la yaraa speedka laga badiya inta kale speedka maaragtay maxaa la yidhahdaa ama toonkii ama qaabkii loo wadaayay isku hal qaab ayaa laga dhigaa marka su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeye body language iyo markii laga hadlayo verbal language kee ayaa awood badan so the question is verbal and non-verbal communication which one weighs more isku day insha allah haddii ilaah yidhaahdo inaad qaybta hoose uga soo shaqaysid ama comment ahaan ugu soo qortid ba'idinkii aad ayaan ku salaamaya